qisada shimbirkii u soo dacwooday Nabi Suleymaan iyo sheekadii ninkii garka weynaa oo ku dhigay. Shimbir ayaa waayihii Nabi Suleymaan damcay inuu ka cawo meel biyo ay ku jiraan. markaas ayuu arkay inay caruur yar biyaha ku ag ciyaarayaan. Shimbirkii wuxuu siray walla inaadan ka amaan helin ciyaalkaasi haddii aad u soo degtid. Wuxuuna iska fariistay geedkii biyaha u dhawaa agtiisa. Halkaas ayuu ku sugayay ilaa inta ay caruurta ciyaartooda ka dhameysanayaan. Markii in badan uu sugayay shimbirkii ay caruurtii dhameysteen ciyaartooda weyn iska tageen. haddana intuusan soo degin waxa biyihii yimid nin gar weyn oo ay ka muuqato inuu yahay qof astaamaha diinta iyo inuu si wacan ugu dhaqmo. shimbirkii ayaa wuxuu iska dhaadhiciyay in ninkan uu yahay nin sheekh oo caalim oo dhankiisa wax dhibaato aysan kaga imaaneen. biyihii ayuu u soo degtay shimbirkii si uu u cabo, laakiin waxa ku dhacay ma suuraysan kartid. ninkii odayga ahaa ayaa dhagax ku soo tuuray shimbirkii, wuxuuna kaga dhacay isha. sidaas ayuuna ku waayay mid kamid ah ilahiisii. shimbirkii ayaa u soo dacwooday Nabi Suleymaan. Nabi Suleymaan ayaana dacwadii shimbirka dhageystay, wuxuuna ninkii odayga ayaa garka weynaa ku xukumay in isagana laga tuuro isha ama laga rido. laakiin shimbirkii ayaa codsi u soo jeediyay Nabi Suleymaan isagoo ku leh u daa ishiisa, sababtoo ah isha iyada dambi ma leh, waxaa dambiga iska leh garka ee ka xir. sababtoo ah garkaas ayaa sababay inaan dhagartiisa aamino oo aan isku haleeyo biyahan ugu soo dego anigoo u maleeyay inuu yahay nin sheekh oo caalima oo aan wax dambiga geysanaynin. haddii uusan garka lahaan laheenna maba soo degi lahayn oo sida ilmaha iskaga ilaaliyay amaba uga feejignaa ayaa uga feejignaan lahaa. sidaas ayaana loogu fuliyay xukunkii oo garkii looga xiray. dulucdii ujeedada sheekadan ama qisadan aan ka fahmi karna waxa ay tahay in qofka muuqaalkiisa sare haddii ay diin ka muuqato ay muhiim tahay in wax wanaagsan oo fiican uu ku dhaqmo si astaanta ka muuqata ay u noqoto mid wanaagsan oo sida laga filayo u dhaqan gasha. waxaa marma doonta ah in labada dhanba ay mudan yihiin. waxa ugu foolxun qofka muuqaalkiisa sare diinta ay ka muuqato qalbigana faajirka ah amaba ka noqdo qof dambiile ah. waxaas ugu wanaagsan qof qalbiga saafi ka ah xitaa haddii muuqaalkiisa guud aysan ka muuqan wax diin ah. maxaa yeelay haddii qofka wax wanaagsan ama astaan wanaagsan oo diin ah ay ka muuqato, waxa wanaagsan inuu ku dhaqmo diinta oo laga ammaan helo si muuqaalkiisa uu u noqdo mid si sax ah uga turjumaya. walaal inta aadan gar weyn sii deysan amaba xijaab weyn aadan qaadan, ka laabo dhagarta dadka ama xayawaanaadka iyo shay kasta oo dhib aad u geysanayso. qalbigaagana ka dhig mid saafi ah oo ka nasahan xumo oo dhan si ay kaaga muuqato astaanta waxaad xiran tahay ama muuqaaga oo qaab diinta islaamka ka muuqato suurad wanaagsan aad u labisan tahay ay u wanaagsan tahay. waxa qisadan ila wadaagay Xuseen Cabdi Wahaab Sigale.